kulan wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga warbaahinta Gundhig. barnaamijkan oo ku eegna dhacdooyinka caalamka ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr ah ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaana kamid ah Hadii la idmo ciidanka cirka ee Siiriya oo dhulka soo dhigay diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo dalkiisa ku casumay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in koonfur Afrikana baadari sheegan jiray inuu dadka ku daweeyo sunta oo maxkamad la soo taagay kumanaan qof oo Venezuela u dhalatay oo iska xaadiriyay xuduudda dalkaasi uu la wadaago Colombia shacabka Turkiga oo taageeray xooggan u muujiyay ciidamadooda gulufka ka wada Siiriya inta daawateen saaxiibayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon ee aan kugu soo gudbin doona barnaamijka bandhiga warbaahinta Gundhig saaxiibayaal ku soo dhawaada markana qodobada oo faahfaahsan barnaamijka bandhiga warbaahinta Gundhig oo bilaaban doona 10 bishan oo ku beegan habeenimada Sabtida saacadu marka ay tahay 9 habeenimo ayaa waxa uu ka madax bannaan yahay siyaasadaha isdiidan ee Soomaaliya haddaba si aad ula socoto ku xirnaa barta YouTube-ka aan ku leenahay ee Gundhig aan ku bilownaa diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa la soo riday dalka Siiriya kadib weerar ay ku qaadeen ciidamada cirka ee dalkaasi diyaaradan helicopterka ah oo nuuceedu ahaa F-16 oo isticmaalayeen militariga Yahuudda ayaa dhulka la soo dhigay gudaha Israa'iil wax yar uun kadib xilli ay ka soo laabatay duqeyn ay ka waday gudaha Siiriya diyaaradan ayaa la soo weerinayaa inay weeraro bambaano la eegatay saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Siiriya iyo weliba kuwa Iiraan oo ay ku leeyihiin gudaha Siiriya gaar ahaan meel ku dhow buuraha Golan Heights ciidamada difaaca ee Israa'iil ee magacooda loo soo gaashay IDF war qoraal ah ay soo dhigeen boggooda Twitter-ka ayay ku sheegeen in diyaaradani ay soo dhacday laba askari oo ay sheegeen inay ahaayeen duuliyaasha diyaaraddan ay xaqiijiyeen inay dalaayada kaga boodeen oo xilligan ay nabad qabaan saxaafadda Israa'iil ayaa xaqiijisay in diyaaraddan ay soo dhacday waxayna sheegeen inay ku soo dhacday dhulka Israa'iil ay xoog ku haysato gaar ahaan dhanka waqooyi Yahuudda ayaa tan iyo markii uu bilawday dagaalka 7 jirsaday ee ka socda dalka Siiriya waxay daraasiin weeraro ah ka geysteen gudaha dalkaasi balse arrinkan ayaa wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay ee laga soo riday Israa'iil diyaarad ka mid ah diyaaradihii ay ku weerari jireen Siiriya guud ahaan waddanka Siiriya ayaa xaaladiisu ka sii dareysay sanadihii la soo dhaafay maadaama ay waddankan isku haystaan ku dhawaad 10 dawladood qaarkoodna ay ciidamada uga sugan yihiin gudaha Siiriya sida Mareykanka, Turkiga, Iiraan iyo weliba waddanka kale ee Russia dhanka kalena aan eegnay dalka Kuuriyada Waqooyi oo guud ahaan caalamka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba ka go'doonsan ayaa hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un waxa uu casumaad u fidiyay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in casumaaddan ayaa waxay noqonaysaa 10 sano kadib markii ugu horeysay in waraaqa casumaad ah ay isdhaafsadaan hogaamiyaashii waddankii la oran jiray Kuuriya maanta san noqday laba waddan oo cadaawad xoogani ay ka dhaxayso cadaawadda oo lagu eedeeyo inuu Mareykanku abuuray Mr. Moon oo arrinkan si weyn u soo dhaweeyay ayaa sheegay in Kuuriya ay muhiim u tahay iyada oo xasiloon dunidana la jaanqaada waxa uuna sheegay inuu doonayo in Kuuriya qaybteeda waqooyi iyo weliba waddanka Mareykanka ay ku soo laabtaan miiska wada hadallada warqadan casumaad ah oo gacanta ku qorneed ayaa Kim Jong Un waxa uu soo wakiishay una soo dhiibay walaashii Kim Yo Jong oo shalay ka qayb gashay xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka dhacday magaalada Seoul waxayna warqadan ku wareejisay aqalka looga taliyo Kuuriyada Koonfureed Kim Jong Un oo ah nin dhalinyaro ah laguna eedeeyay inuu dagaal ooga yahay ayaa ku guuleystay inuu wafdi u diro Kuuriyada Koonfureed tan iyo sanadkii 1950 oo uu dhacay dagaalkii ay ku kala go'een labada Kuuriye warqadan ayaana lagu sheegay xilliga tooska ah ay uu booqan doono madaxweynahani waddanka Kuuriyada Waqooyi balse waxaa lagu sheegay oo warqadan lagu soo qoray in xilliga ugu horeeyay ee suuragal tahay Moon Jae-in uu ka casuman yahay dalka ay adag tahay maanta in la boqdo ee Kuuriyada Waqooyi arrintan ayaa waxay muujinaysaa isu soo dhawaasho xooggan oo jasiirad lamoodka Kuuriya u bilawday iyada oo labadii waddan ay colaad raagta ah ka dhaxaysay ku dhawaad 100 sano ee la soo dhaafay waddanka Venezuela ee koonfurta qaaradda Ameerikana madaxweynaha dalkaasi Juan Manuel Santos waxa uu ku dhawaaqay in la joojinayo dhammaan socdaaladii looga bixi lahaa waddanka xuduudda waddankana loo ogolaan doono inay ka baxaan dad kooban oo kaliya kadib markii madaxweynuhu arrinta ku dhawaaqay ayaa dalka Venezuela waxaa ka bilowday in kumanaan kun oo qof oo dalkaasi u dhashay ay ku yaacaan xuduudda dalkaasi uu la wadaago Colombia dawladda ayaa sheegtay in loo ogolaan karo inay safraan dadka haysta baasaboorada iyo waraaqaha safarka kumanaanka kun ee qof ee ka gudbay xuduudda Colombia ayaa la sheegay in intooda badan ay yihiin dad muruqmaal ah oo noloshooda ka soo dhacsada waddanka Colombia dawladda Venezuela ee musuq ragaadiyay ayaa doonaysa inay xakamayso dadka tirada badan ee dalkeeda isaga baxaya
dadka oo u hayaamaya inay raadsadaan nolol cusub oo dhaanta nolosha waddankooda taalla iyagoo intooda badan u safra waddamada Brazil, Argentina, Mexico iyo weliba Colombia. saaxiibayaal halkaad weli nagala socotaan waa warbaahinta Gundhig waxaana daawanaysaan barnaamijka bandhiga warbaahinta Gundhig markana aan eegno waddanka Turkiga oo xilligan wajahaya dagaalo xooggan gaar ahaan aaga ku aadan magaalada Afrin ee dalka Siiriya ayaa markan gabdhaha Turkiga waxay muujinayaan sida ay ugu diyaar u yihiin inay barbar istaagaan ciidamada waddankooda ee gulufka hubeysan ka wada gudaha waddanka Siiriya gaar ahaan xuduudda ay wadaagaan Turkiga iyo Siiriya. haweenkan ayaa waxay muujiyeen qadiyadooda ku aadan dagaalkaasi muuqaalo laga soo duubayaan waxay muujinayaan iyaga oo ku dhex safraya ama ku dhex lugeynaya magaalooyinka waaweyn ee waddanka Turkiga iyaga oo raadinaya ama baadi goobaya dhaqaalo ay uga qayb galaan ciidamada Turkiga ee ka dagaalamaya waddanka Siiriya. haweenkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidamada waddanka Turkiga waxayna sheegeen in xilliyada soo socda ay u safri doonaan waddanka Siiriya si ay uga qayb galaan dagaalka ay ciidamada Turkidu kaga soo horjeedaan kooxda Kurdiyiinta ee YPG kooxda oo Turkiga oo kala hor sheegay inay tahay koox argagixiso ah oo liddi ku ah nolosha iyo nabadda ka jirta waddanka Turkiga. dagaalkan uu Turkigu qaaday ayaa markan wuxuu u muuqdaa mid taageero weyn ka helaya bulshada Turkiga gaar ahaan dadka ku dhaqan gudaha waddankaasi. dhanka kale dagaalkan ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana kooxda ay qoonsato Turkiga oo weerarka ku qaaday ee YPG gadaal ka taagan waddanka Mareykanka iyaga oo siiya taageero hiil iyo hoo ah waxayna Mareykanku Hadii jeer aaminsan yihiin in waddanka Turkiga uu dagaalka ku qaldanaa. wasiirka arrimaha dibada ee Mareykanka Rex Tillerson oo isbuucii hore hadlay ayaa wuxuu sheegay inaysan muhiim ahayn in Turkigu uu weeraro Siiriya gaar ahaan kooxaha Kurdiyiinta ka oo Rex Tillerson uu sheegay in kooxdan ay tahay kooxda kaliya ee la dagaalami karta kooxaha ama waxa Mareykanku ugu yeero argagixisada. kooxdan Kurdiyiinta ee YPG ayaa waxay ka mid tahay kooxihii Daacish ka saaray dhulka ugu badan ee kooxda laga qabsaday ee dhaca waddanka Siiriya balse markan waxay ka dhex tafantay iyada iyo dawladda gobolka awoodda badan ku leh ee Turkiga. qaaradda Afrika haddaan eegnana waddanka Senegal ee galbeedka qaaradda Afrika waxaa si weyn uga socda guud ahaan dalkaasi banaanbaxyo xooggan oo looga soo horjeedo dawladda xilligan maamusha dalkaasi. xisbiyada mucaaradka ayaa isbuucyadii la soo dhaafay waxay soo abaabileen banaanbaxyo waaweyn kuwa oo looga ashtakoonayo dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Macky Sall oo ay ku eedeynayaan inay doonayso inay mar kale ku laabato xukunka. duqa caasimadda Gaar Sheikh Khalifa ayaa ka codsaday madaxweynaha inuu ilaaliyo nidaamka lana joogo xilligii uu si nabad ah xukunka isaga dhiibi lahaa ama uu si xor iyo cadaalad ah ugu tartami lahaa doorashada soo socota. doorashada guud ee waddanka Senegal ayaa la filayaa in dalka ay ka dhacdo dadka shacabkan ay u dareeraan sanadka soo socda ee 2019. wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa waxaa lagu eedeeyaa in heerka daahfurnaanta wadamadaasi ay liidato iyada oo wadamo badan oo qaaraddan Afrika ku jira ama ku yaala weli ay ka jiraan nidaamyada kaliya-talisnimada kuwa oo hal qof inta xukunka qabsado uu muddo ku raago xilka uu hayo. weli waxaan ku jirnaa wararka qaaraddan Afrika ee Koonfur Afrikana mid ka mid ah baadariyaasha kaniisadaha Nasaarada ee dalkaasi ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyay inuu dad aan tiradoodu yarayn oo u isticmaalay sunta cayayaanada lagu dilo isagoo aaminsanaa inay dawo tahay. Lithobo Rablago oo kaniisada uu hormuudka ka yahay looga yaqaan Don Boston ayaa galdacwadada looga furay waddanka Koonfur Afrika iyada oo loo haysto inuu dad badan oo xanuunsanaya oo loogu keenay inuu dawo dhaqameed ku daweeyo oo uu isticmaalay kuna buufiyo sunta loogu talagalay in lagu dilo cayayaanada gala dalagga beeraha ka baxa. Rablago ayaa maxkamadda ka hor sheegay in suntan uu isticmaalay oo ay dawo tahay cudurrada loo taag waayay sida AIDS-ka iyo kansarka wuxuuna intaa raaciyay inuu hayo tusaale nool oo sanadkii 2016 ayuu dad qabay kansarka inta ku buufiyay suntan kadibna ay bogsadeen sida isagu u qabo. maxkamadda gobolka Limpopo ee Koonfur Afrika ayaa ninkan weli aanan ka gaarin go'aankii u dambeeyay balse waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ninkan lagu xukumo xukunka uu ku mutaysan karo falkan uu geystay. dad badan oo ninkan yaqaana ayaa sheegay in tiro dhowr jeer ah ninkan uu ku dhaqaaqay waxyaabo ka baxsan caadada maangalka ee aadanaha waxaana la sheegay inuu mar cuni jiray dhagxaanta quruuraxa iyo cawska xoolaha ay daaqaan iyadoo xilliga uu faray kuna amray dadka kaniisadiisa ka tirsan inay isticmaalaan dooga oo uu sheegay in wanaag badan uu ku jiro isticmaalkiisa.
waddanka Masarna waxaa laga soo sheegayaa in ciidamada waddankaasi ay qaadeen weeraro lixaad leh oo dhanka cirka ah gaar ahaan ay ku qaadeen gobolka Siinaay oo halka ay ka taagan yihiin dagaalo u dhaxeeya ciidamada iyo waliba kooxaha ka soo horjeeda dawladda gaar ahaan kuwa lagu tilmaamay inuu dhaqmaan qaabka argagixisada nin lagu magacaabo Colonel Tamir Revai oo u hadlay ciidamada waddanka Masar ayaa wuxuu sheegay in gacanka Siinaay ay weeraro lixaad la ku qaadeen isagoo sheegay halka inay ku laayeen ciidamo badan oo ka tirsan kooxda Daesh waddanka Masar ayaa isbuucyadii la soo dhaafay ama bilooyinkii la soo dhaafay waxaa ka tagnaa xaalado murugo ah kadib markii kooxo waddanka ka dagaalama ay dhibaato badan ka geysteen iyada oo la xasuusto gobolka Siinaay masaajid ku yaala in dhowr bilood ka hor uu ka dhacay qarax xoogan ka oo lagu dilay in ka badan 200 oo qof oo xilliga gudanaya salaadii Jimcaha ciidamada Masaarida ayaa waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan xaaladda ka taagan gobolka Siinaay ee u muuqata guud ahaan inay ku faafayso dalka Masar gaar ahaan gobolka Siinaay ayaana waxaa la sheegay in dadka si gooniya loo target gareysto ama si gooniya loo bartilmaameedsado iyada oo dadka haysta diinta Nasaarada ay si gooniya bartilmaameed ugu yihiin kooxahan waddanka Masar oo kamid ah wadamadii ay ka dhaceen guugi Carabta ayaa wuxuu kamid yahay wadamada xasiloon ee ku yaala waqooyiga qaaradan Afrika gaar ahaanna wadamada sida weyn loola xiriiriyo arrimaha la xiriira Bariga dhexe balse waddankan ayaa wuxuu ka degan yahay xaaladaha kale ee ka taagan wadamada kale markii loo eego inkastoo waddanka Masar la sheego inuu haysto ciidamo awood leh oo ku faano kuwa oo inta badan la sheego inuu kaga fakado xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka taagan guud ahaan wadamada galbeedka wadamada waqooyiga qaaradan Afrika iyo waliba wadamada kale ee uu dariska leeyahay ee dhaca mantiqada dagaalada xoogani ka oogan yihiin Bariga dhexe guud ahaan saaxiibayaal barnaamijka bandhiga warbaahinta Gundhig oo caawa aad ku daawateen qodobo badan oo caalami ah inta ayaan ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal intaan barnaamijkiisa kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo